iyadoo nolosha xeryaha dhadhaabi tahay mid adag oo caqabada ku xeeran yihiin ayaa haddana waxaa jirta bugto xanuun iyo baahi dhaqaale yari. Tani waa hooyo Faadumo Siciid Canshuur. Waxay muddo 2 sano iyo badh ku xanuunsan tahay gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Sidaad ka dheehan kartaan muuqaalka, waxaa hooyadan dhuunta kaga xidhan tuubo ay ka neefsato, halka calooshana ay kaga xidhan tahay tuubo kale oo ay ka qaadato qutulyoonka nolosheeda oo ah walxaha dareera sida caanaha, biyaha iyo mushaalida amaba boorajka. Waxaan ku booqday hoygay ka degan tahay xerada qaxootiga Xagadheer, waxaana dhibaatada hooyadan ka warbixinaya Macallin Mukhtaar Subaan Dhaqane oo ah shakhsi u dhaqdhaqaaqa dadyowga tabaalaysan ee ku nool xeryaha Dhadhaab. waxaan soo booqanay hooyo Soomaaliyeed. hooyadan meeshan fadhido waxaa la yiraahdaa Faadumo Siciid Canshuur. hooyo Soomaaliyeed waxay ahayd hooyo iska xamaalato markay caafimaad qabtay iska ladneedo maasha Allah fiicneed aan cidna aan u baahnayn. hadda waxay sidan tahay oo ay joodarigan ay saaran tahay muddo taqriiban 2 sano iyo bar ah ay halkan saan xanuunsan tahay oo sariirtan saaran tahay. ikhwaani يعني حنون قف بني آذنا marka la yiraahdo hebel uu xanuunsan yahay yani waxa laga yaabaa inaad sawirato waxyaalo uun iska jiracaynka ah maamadan xanuunkeeda iyo dhibkeeda waa mid runtii shakhsiyan anu marka la iga waramay oo aan arkay aan aad uga naxay waa qof nool marka koobaad waa yeel oo qof daa haddana qofka marka aad aragtiin aad in badan ka nixi doonteen waa qof halkaa ka neefsado maamada halkaas dhuunta ah waxa uga jira beeb halkaas ay ka neefsataa halkaas ay candhuufta ka tuftaa halkaas ay mataqaana ka neefsataa raashinka wixii ah halka caloosha waxa uga jira beeb kale oo raashinka laga siiyaa waxa la siiyaa caanaha iyo boorashka raashin kale ma cunto halka cunaha hadii uu daqsi ka fuulo naqaska ku dhagaya hadday candhuuf tufays halkaas ay ka tufi hadday xaaka iyo qufac halkaas ay ka qufici waa qof yani zaa'id bani u baahan gurmad degdeg u baahan in wax loo qabto u baahan in laga naxo u baahan. xaaladda xanuunkeeda oo aad u daran waxaa kaloo jirta duruuf dhaqaale yari, waxayna haatan mushkiladii ka taagan tahay maareynta nolosheeda, mana jirta haba yaraatee wax dhaqaalo ah oo lagula tacaalo caafimaadkeeda iyo guud ahaan nolosha qoyskeeda. maamadan runtii beebkan caloosha uga jiro ee laga siiyo cabitaanka sharaabka iyo midkan cunaha uga jiro ay ka neefsato halkan ay ka qaadato waxay u baahan tahay in laga bedelo muddo markii ku jira in la bedelo. hadda waxa la gaaray xilliga laga bedelaha runtii wax looga bedelo wax kharasha wax dhaqaalaha oo loo hayo inaba hayraatee ma jirto. waxay dhashay caruur afar ah oo waxba haynin oo gacanta waxba ugu jirin oonan shaqaynin iyo dhashay waxa gacanta ku haysaa maamadan xanuunsan hooyadan Soomaaliyeed walaasheed oo waxba iyada u haynin oo mataqaana kor taagan oo maanta iyada dhaqdo oo iyada rogto oo iyada gadgadiso oo iyada waxba u haynin. wallahi alcadiim aad baan uga naxay muuqaalka maamadan markaan arkay waxaan rajaynayaa in qof kasta oo qalbi leh in kaana fi qalbika islaamun wa iimaan hadii wax un islaamnimo qofka qalbiga ku jiro inaad ka nixi doontid una soo gurma doontid ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkana xanuunada caalamka ka jira Allah idinka badbaadiyo ilaahay idin badbaadiyo xulihiinana Allah idin barakeeyo. walaalayaal maamadan waxa isku daydaa nin walow markaad muuqaalka aragto inaad at least waxa aad u qaban karto ugu soo gurmato aad ku soo caawisid aad ku soo garab istaagtid xerooyinka qaxootiga joogta gaar ahaan Xagadheer bay joogtaa. Bashiir Gaxnuug RTN xeryaha Dhadhaab.